السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawaada channelkeena Somali Tube. Waa xalqadii labaad, xalqado kooban oo aynu kaga hadlaynay khaldooradii muslimka ee taariikhda caalamka soo maray, iyadoo waliba ay u badan doonaan qarniyadii dahabiga ahaa ee islaamka oo loo garan og yahay Islamic Golden Age. Muuqaalkeena maanta waxaanu kaga hadli doonaa gabadhii magaceeda ku qortay taariikhda islaamka, run ahaantiina door muhiim ah ka ciyaartay caawinta bulshadeeda. gabadhaas oo lagu naanayso Maryam al-Islabi, Maryam Kushiyaar al-Ijliyi, oo ahayd gabadhii soo saartay wejigii labaad ee astroloobka. haddii aan yar dul istaagno qalabkan waxa uu yahay iyo waxa loo isticmaali jiray, markii ugu horeysay qalabkan waxaa soo saaray Greekii hore iyagoo isticmaali jiray inay ku xisaabiyaan latitudeska ama loolasha. waxa uu soo jiitamaba waxa uu soo gaaray qarniyadii dahabiga ee islaamka, waqtigaas oo aqoonyahanadii muslimka ahaa ay door muhiim ah ka ciyaareen wax ka bedelidda qalabkan. waxyaabaha ay qalabkan muslimiintu u adeegsan jireen kuna soo kordhiyeen waxaa ka mid ahaa inay ku ogaadaan qibladu booska ay ka xigto, iyagoo welibana u isticmaali jiray inay ku ogaadaan bilowga bilaha iyo dhammaadkoodaba. haddaba haddii aan dib ugu soo noqono gabadhan taariikhdeeda, Maryam Kushiyaar al-Ijliyi waxay dhalatay qarnigii 10aad kuna dhalatay magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Maryam waxa wax soo baray caalimkii la dhihi jiray Maxamed ibn Abdullaahi Nastulus. waxaa lagu yaqaanay Maryam mid xiisaysa samaynta qalabkan. aabaheed Kushiyaar al-Ijliyi wuxuu ahaa caalim sameeya qalabkan astroloobka, wuxuuna ka mid ahaa kuwa ugu waxtarka badan leh cirbixinada Xalab. maadaama ay xiiseynaysay cilmiga astronomiga, waxay aabaheed kala shaqaynaysay dayactirka iyo hagaajinta astroloobka intii u dhaxaysay 944 ilaa 967 miilaadiga, iyadoo ka shaqaynaysa waaxda cilmiga hawada sare ee qasriga boqortooyada ee Sayf-ud-Dawla oo dowladdii Xamadaaniya ee dalka Suuriya ka dhisneed uga arrimi jirtay. waxay soo saartay astroloob kaasoo ahaa mid casri ah, iyadoo aynu wada ognahay in hayaanka iyo waddada guusha inaan si fudud loo marin. say u samayso qalabkan waxay ku qaadatay in ay ka shaqayso xisaabaad aad u adag. xal u heliddii howlihii adadka ee ka hor yimaaday ayaa soo saaray gabadhan aynu ka sheekaynayno maanta, ee magaceeda uga tagtay adduunka iyo caalamul islaam oo dhan, magaceedan ku qortay taariikhda islaamka. haddaba daawade, muuqaalkeenu maantaasu naga eegyahay, tan iyo muuqaal dambe oo xiise leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.